la soo afmeeray marka horese aan dib idin celiyo ka hor inta aysan lagu dhawaaqin heshiiskaasi Somaliland marxaladii ay soo martay sida la socotaan xukuumadda Somaliland ama dalkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee caan qaata waxay ahayd Jamhuuriyadda Somaliland 1926 Juun soddon sano oo midnimo ah oo ay la galeen Soomaalidii kale ee Talyaaniga oo ay ka dhalatay xukuumad la oran jiray ama dowlad markaas lagu magac daray Somali Republic waxay soo idlaatay ama ay meesha ka baxday 1991 markii dowladdii dhexe ee Soomaalidu ay ku burburtay magaalada Hargeysa iyo Muqdisho halkaas oo looga saaray dalka rejiimkii dhowr iyo 20 sano xukumayay Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed oo la baxay isagoo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka ee ummadda Soomaaliyeed 10 sano oo Somaliland dagaal halgan hubaysan ay ku jirtay way hogaaminayeen saraakiishii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed iyagu ka biidiiday qaabkii wax waday hogaamiyihii waqtigaasi Waafweyne Barre ayaa waxay qayb ka ahaadeen inay saaxadda ka saaraan iyo qaabkii hogaamineed ee qalafsaneyd hogaamiye Maxamed Waafweyne boosiga xukuumadda Somaliland ee ka dhisan magaalada Hargeysa ay qaadaan iyagoo heshiis rasmi ah la galay oo isdhaafsi dhinaca aqoonsiga iyo xuduudda madaxa xukuumadda dalka Itoobiya arrintaasi waxa ay keentay buuq diblomaasiyadeed dagaal afka ah iyo diidmooyin iska hor imanaya waxay qaadatay muddo 9 bilood ku dhawaada istijidka diblomaasiyadeed ee geeska ka socday waxaa soo farageliyay dowlado kala duwan oo aan iyagu qaaradda qayb ka ahayn hormuudna ay ka hayeen dowladda Turkiga iyo dowladda Carabeed qayb ka mid ah isku dayo lagu hor istaagayay heshiiskii safgaradkii xukuumaday iyo culdashay shalay ay ahayd markii xarunta qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya si rasmi ah halkaas uga cadeeyay inaanay ahayn wax laga kaftami karo ama gurgurta laga geli karo ama doodba laga keeni karo heshiiska ay Somaliland la galeen haddaba idaacadda xogaha ay ka helaysay magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in wiigan soo socda waa bishan haddeer aynu ku jirno haddeer dhammaanaysa wiiga soo socda ugu horreeya ay la soo afmeerayo ama waxa weeye la soo dhammaystirayo heshiiskii Somaliland iyo Itoobiya xogaha ka imanaya Hargeysa iyo xarunta Jamhuuriyadda Somaliland waxay sheegayaan in madaxweynaha Somaliland uu safar ku tagi doono magaalada Addis Ababa isagoo halkaas kula hadli doono baarlamaanka dalka Itoobiya waana halka ay ka dhici doonto ku dhawaaqista aqoonsiga Somaliland iyo sharci u rogista safgaradkii Somaliland iyo Itoobiya ay wada galeen waxay intaasi xigta in sidaas la mid madaxweynuhu uu ka hadli doono labada gole oo soo laabadkiisa iyo cagta uu soo geli doono magaalada Hargeysa labada aqal ee ay ka dhisan ama ka midka ah xukuumadda Somaliland ee saddexda waaxood ka kooban wararkan haddeer idaacadda soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan inay dabada ka riixayso maadaama oo Somaliland waqtiga kan ay u jihaysatay dhinaca doorashada iyadoo damca dhinaca asxaabta mucaaradka ahi ayagu hore uga biyadiideen ama ay dood ka keeneen isfahankaas xukuumadaha Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa ka hordaya in ay wax isbedeli karaan haddii xukunka talada dalka loogu guureysto xisbiga kulmiye taasoo meesha ka saari doonta isfahankaas si arrintaasi looga hortago waxay wararku idaacaddu helaysaa oo xog biyo kama dhibcaana in xukuumadaha Addis Ababa iyo Hargeysa ka dhisan ama hogaamiyaasha Addis Ababa iyo qabanada Itoobiya iyo Somaliland ay si rasmi ah wiiga bishan soo socota ay hirgelinayaan heshiiskii Somaliland iyo Itoobiya arrintaas oo labada dhinacba badbaado u ah si heshiiskaasina u noqdo mid meel mara ummadda reer Somaliland idaacaddu xogta ay u keenayso waxaan filayaa ama rajaynayaa inaad gadaal ka maqli doontaan oo ay soo bixi doonto maalmaha soo socda oo aad ku arki doontaan saxaafadda kala duwan ee gudaha iyo dibaddaba laakiin xogtan rasmiga ah oo dad aad uga dhow ama halka waxa weeye arrintaasi ay taallo idaacadda looga soo dusiyey waxay tilmaamayaan in wiiga soo socda arrintaasi la soo afmeerayo Somaliland ay noqon doonto dalka 55aad sidoo kalena dowladda Itoobiya ay access u heli doonto arrimaha badda dhinaca ganacsiga iyo amnigaba 33 sano kadib ummadda reer Somaliland waxaan rajaynayaa in ilaahay uga dhigo mid khayr ah oo uusan ku noqon ictiraafka sidii kii Suudaan oo kale ama aan ku noqonin mid waxa weeye haddii alla waxa weeye kala qaybin iyo dagaallo hor leh u horseeda laakiin mid u fura oo waxa weeye ku hogaamiya haddii alla waxa weeye mid horumar dhaqaale iyo isbeddel nololeed u horseeda ummadda reer Somaliland mar kale waxaa looga baahan yahay fadlan koolka jooji
waxaa looga baahan yahay inay isu diyaariyaan maalmahaasi farxadda leh iyo xogta idaacaddaasi idiin wado arrintan ayaa iyadu lafteedu waxay wax ka bedeli doontaa go'aamadii dhinaca siyaasadda iyo doorashooyinkii dalka ka dhacay maadaama xusbiga talada haya oo isagu ahaa xusbigii ugu wakhtiga dheeraa marka loo eego xusbiyadii dalka soo maray xusbi tala haya oo xusbiga kulmiyo oo 2 jeer talada dalka soo hogaamiyey ayay isla arrintan u noqonaysaa fursad kale oo siyaasi ah oo hoggaanka dalka ku sii hayn doono muddaxireedkiisii saddexaad ee talada dalka fadlan dhammaantiin barnaamijka sii sheergareeya falanqaynta waynu geli doonaa haddaan la idmo waxaan rajaynayaa ummadda reer somaliland maanta inuu tahay maalin weyn oo farxad leh